madashan lagu soo bandhigay mashiin casri ah oo lagu hubin doono tayada dawooyinka iyo agabka la isku qurxiyo ee dalka soo gala ayaa madashaasi waxa ka qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland madaxda ururka ay ku bohoobeen soo dejiyaasha dawooyinka iyo shaqaalaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland halka sidoo kalena ay madashaasi ku sugnaayeen khubaro kala duwan oo marag iyo marxaati ka ahaa tayada mashiinka lagu baari doono dawooyinka dalka soo gala Ali Maxamed Cabdille Ali Bikolo gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland mudane Maxamuud jaamac galaal wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Ali jaamac faarax bureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliland iyo Umar Shacayb Maxamed wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka warramay doorka iyo kaalinta uu ka qaadan doono mashiinkani hubinta iyo ogaanshaha dawooyinka dalka soo gala maanta halkan inaan ku soo bandhigno waxyaabo kamida runtii waxyaabo in badan aan sugeynay inaan ay dalka yimaadaan aan ka oran karo runtii maanta mashiinkan halkan ku soo bandhigaynaa hordhac wuxuu yahay in wadanka aan ka sameyn karno qalabkii baaritaanka agabka soo gala wadanka iyo gudaha ka soo baxaba waa mashiin runtii dhowr iyo 10,000 oo item oo dawo iyo waxyaabo kaleba hadii loo isticmaalo baari kara report sameyn kara ganacsatada iyo dadka wax keena iyo kuwa wadanka wax ka soo saaran waxa ku dhiirigelinayna in la shaqeeyaan oo iyagu ay keenaan maaragtay mashiinka u keenan wixii ay soo saareen ama wixii ay soo dejiyeen si loo hubiyo wax kan inay sax yihiin iyagu laakiin mas'uuliyaddu waxay saaran tahay maadaama inaan imka qalab ku filan haynin mas'uuliyaddu waxay saaran tahay waxa weeyaan qofka ganacsada ah inuu Ilaahay kaga baqo oo keeno wixii tayada lahaa tayadu iyo shaqadan aynu halkan ku haynaa ee wasaaradahaas isla kaashadeen waa shaqo aad u weyn waxa aasaasay xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xisbigana waxay ka go'an muddo xilaadkiisa labaad inuu hay'ad madax bannaan ka dhigo resourceska la siiyo la maalgeliyo la ballaariyo la sameeyo shaybaad central ah oo qaranku uu leeyahay khabiir dhinaca mashiinada waxbaara aqoon durugsan u leh ayaa sharaxay sifaha iyo sancada mashiinkan geesta kalena gudoomiyaha ururka soo dejiyaasha dawooyinka ee loo soo gaabiyo diiwa Yuusuf Ducaale Barre ayaa dhankiisa soo dhaweeyay shaybaarkan casriga ah ee lagu hubin doono dawooyinka dalka soo gala waxaanu ammaan u jeediyay gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland mudane Ali Maxamed Cabdille Ali Bikolo oo sheegay in uu guntiga u xidhay sidii loo suurtagelin lahaa ogaanshaha wax kasta oo dalkan soo gala